tani waxay ahayd markii ugu horeysay noloshiisa ee uu ilkaha cadaydo. wuxuu cadayday 3 eber daqiiqo oo buuxa ilaa afkiisu dhiig ka buuxsamo. aabihiis wuu u necbaa inuusan weligiis barin sida ilkaha loo cadaydo, wuxuuna u necbaa inuu saboolnimo ku dhashay. inkasta oo uu adoon ka noqday qoys taajir ah, haddana wuxuu ku noolaa qol hoose oo baranbaro ka buuxdo. markii uu arkay nolosha raaxada leh ee taajiriinta, wuu u adkaysan waayey mugdiga saboolnimada. si uu u farxad geliyo sayidyadiisa, Balram wuxuu u labistay sidii jinnigii Aladdin si uu ugu dabaaldego dhalashada loo shaqeeyihiisa. marwadii way sakhraantay oo waxay bilowday inay ciyaarto. markii ay aad u sakhraantayna, waxay dalbatay inay baabuur kaxayso. marka dadka taajiriinta ah ay waashaan, kama fikiraan cawaaqibka. musiibo ayaa si degdeg ah u dhacday. gabar yar ayaa si lama filaan ah jidka ugu soo muuqatay, waxaana lagu dilay isla goobta. waxay rabeen inay wacaan booliiska iyo ambalaas, laakiin Balram wuxuu u sheegay madaxdiisa inay isla markiiba tagaan. waddadu habeenkii way cidla ahayd, mana jirin kamarado. dhiiggii ayuu nadiifiyey, caddayntiina wuu u qariyey madaxdiisa, isagoo u malaynaya inuu yahay adeego daacad ah. laakiin weligiis ma uusan malaynayn inuusan badbaadinayn sayidkiisa, laakiin uu naftiisa halaagayay. maalintii xigtay, qoyskii sayidka oo dhan ayaa yimid, si aan caadi ahayn ugu naxariisanaya Balram, xitaa ugu yeeraya qoys. waxay u dhiibeen dukumiinti qirasho ah. Balram wuxuu ahaa